sida shaashada ka arkayso madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu ku dhawaaqay lacag $400 ah in bil walba laga bixin doono dadka guriga iibsado. I know the cost of housing is so important to you. If inflation keeps coming down, mortgage rates will come down as well, and the Fed acknowledges that. But I'm not waiting. I want to provide an annual tax credit that will give Americans $400 a month for the next 2 years as mortgage rates come down to put toward their mortgages when they buy their first home or trade up for a little more space. taasoo noqon doonto in muddo kooban oo 2 sano ah. Arrinta ayaan ku sharaxi doonaa maanta walaal soo dhow magacaygu waxa la yiraahdaa Daahir halka waxaan kaga hadalnaa real estate investment iyo wax loo yaqaan personal development. Waxaan ahay the founder of Sahan Investor, waa platform dadka Soomaalida ay ka bartaan real estate investment. Inshallah nagu soo booqo sahaninvestor.com. Haddii rabto arrimaha guryaha iibsashadooda inaan iga ka caawiyo, inshallah igu soo booqo website-kayga sahanrealty.com. Inshallah na soo follow gareey video noocan oo kala saad waragto waan ku bilaabayaa. lacagtani waxa loogu talagalay maadaama interest rate uu yarkacsan yahay meelaha qaar uu maray 6.5 in dadka loo ogolaado lacagtay bishii bixinayeen si ay uga yaraato wax loo yaqaan tax credit in uu sameeyo madaxweynaha Mareykanka. So tan oo ah lacagtani wuxuu ku siin doonaa lacag $10,000 oo tax credit lagu siin doonaa oo taas oo qaadan doonto 2 sano ama wax u dhigmato lacag u dhiganto wax loo yaqaan 1.5 points. Laakiin haddaan ku sharaxo lacagtani waxa loogu talagalay dadka gurigaha suuqa soo galayo inay bataan ama dadka guriga iibinayna iskaga iibiyaan dadka guriga iibsanayana inay gurigooda awoodi karaan ay iska bixin karaan lacagtaasi. So lacagtani waxa loo yaqaan ayaa jira interest buy down ama wax loo yaqaan profit buy down. Haddaan ku sharaxo lacagtani 10 waxay noqon doontaa 10,000 oo loo qaybin doono 24 bilood taasoo noqon doonto $416. So lacagtani badanaa hadii marka la fiirinayo mortgage-ka anigu loan officer mihi laakiin loan officer say u shaqeeyaan 1 point wuxuu qalantaa 1% way. Haddii ka soo qaado guri 400,000 ah oo ku dhufato 1% wuxuu noqonayaa $4,000 1 point. Laakiin nambaradan isku mid ma aha waxaad ku xiran tahay ninka lenderka ay ku xiran tahay policy-ga leeyihiin interest rate-ku meesha marayo iyo loan amount-ka aad qaadanayso. laakiin haddaan ku sharxo adiga saad uga faa'iidi doonto aan ku sharxo maanta haddaad guri leedahay 400,000 aad iibsato oo maanta rate-ka uu mari doono 6.5 uu maray meelaha qaar 5.8 marka laakiin meel waxaan ka soo qaaday meesha ugu sareyso 6.5 5% aad dhigta lacag down payment oo ah $20,000 lacagta loo yaqaano principal interest-ga ama or profit waxa loo yaqaano taasoo kugu tagi doonto $2,785 buu kugu tagi doonaa guriga. Laakiin breakan oo tax credit hadii lagu siiyo waxa laga gooniyaa lacaga $416 gurigaas kugu tagi doona kaliya ah monthly payment-ga bil walba noqon doono $2,369. laakiin haddii aad rabto aad awoodo lacagta 20% inaad dhigto even lacagta way ka sii yaraanaysaa haddaan ku tuso. haddaad iibsato maanta guriga 400,000 hadda aad iibsato aad dhigto 20% taasoo lacag badan noqon doonto laakiin 80,000 ah principal interest-ga or profit-ka wuxuu noqon doonaa $2,406 haddaan ka jaro lacagta tax credit-ka lagu siin doono 460 ka jaro lacagtaas kugu digto monthly payment guriga wuxuu kugu tagi doonaa $1,990 waxaan $2,000 gaarinin oo $10 ka dhiman yahay. So policy-gan still lama baas garinin madaxweynaha wuxuu horgeeni doonaa Congress-ka haday baas gareeyana dadka shacabka oo dhan ayaa ka faa'iidi doono taas oo ogolaan doono interest rate-ka meesha 6.5 marayo 1.5 ka go'aysa taasoo kugu noqon doono inaad bixinayso laga soo qaaday bil walba 5% interest rate inaad bixinayso. inshallah haddii rabto real estate investment inaad barato inshallah waxay ka soo qabataa website-kayga sahaninvestor.com. haddii rabto real estate inaan ka caawiyo arrimaha guryaha iibsadooda ama guri cusub inaad iibsataa rabto inshallah iga soo qabaaniga website-kayga sahanrealty.com. inshallah na soo follow garee video noocan oo kala saad waragto. Wa islaamiya. Assalaamu calaykum.